Joshua Phillips oo ah cunug 14 jir ah ayaa dilay gabar yar oo 8 jir ah oo deriskooda cabsi u ka qabo aabihiis awgeed. Isagoo ka cabsanaya maagista aabihiis iyo garaacistiisa ayaa wuxuu u galay dembi oo uu jaray naf. waana mid ka mid ah qisooyinka murugada leh ee dunida soo maray. ku soo dhawaada saaxiibayaal muuqaalkeena maanta. waxaa noo muhiima daawada inaad subscribe noo saarto kanaalka gambaleelkana aad furato si uu kuu soo gaadho muuqaal kasta oo aan soo gelina bartan. like-na ka ilaawin muuqaalka. sidoo kale qaybta hoose commentigaaga fikirkaaga noogu reeb lana wadaag asxaabtaada oo sii sheer garee muuqaalka. intaasoo dhammi waxay qayb ka yihiin koritaanka iyo kobaca kanaalka. Joshua Phillips wuxuu dhashay taariikhdu markay ahayd sanadkii 1984 bishii Maarso 17-keedii wuxuuna ku dhashay dalka Mareykanka gobolka Florida. dib ayaa ka dhex jiray isaga iyo aabihii oo ahaa qof aad u kulul kaasoo u diidanaa ciyaarta iyo wixii la midka ah. gaar ahaan wuxuu aad ugu diidanaa inuu la ciyaaro carruurta deriska. markasta waa u dili jiray haddii uu ku arko isaga oo la socda carruurta. George-na wuxuu iska ilaalin jiray indhaha aabihii iyo inuu ku arko isagoo la socda carruurta oo la ciyaaraya. maalintii ay taariikhdu ahayd 3 November sanadkii 1998 Joshua waxa uu la ciyaarayay kubadda basketball-ka Mary Clifton oo ahayd 8 jir. iyagoo ciyaartii wata Joshua waxa uu kubad ku dhuftay Mary kadib waa ay ooyday. Joshua-na waxa uu isku dayay inuu isagoo ka cabsanaya ciqaabta uu kala kulmi doono haddii uu ka ogaado inuu la ciyaarayo ciyaalka. in badan waxa uu ku dadaalay inuu aamusiyo gabadha yar. markii waxa uu u kaxeeyay gurigooda kadib waxay ka sii dartay inanteedii. waxa uu ku garaacay ushii kubadda. waxa uu la dhacay mindi ama toorey. halkii ayay gabadhii nafta kaga baxday. waxa uu sameeyay inuu qariyo meydka. waxa uu ku qariyay sariirtiisa hoosteeda. maadhii qoyskoodu waa ay tabeen in gabadhoodii maqan tahay. waxayna wargeliyeen booliska iyo dadweynihii ku noolaa magaalada. waxaa la bilaabay baaritaanka iyo raadinta maadhii. waxaa la howlgeliyey ciidamadii qaranka iyo booliskiiba iyagoo ka baadhaya bullaacadaha waddooyinka iyo meel kasta oo loo filayo inay gashay. waxaa loo soo kariyey diyaaradihii ciidanka difaaca. waxa uu baaritaanku soconayay muddo 7 cisho ah 3 bisha November ilaa 10-keedii. waxaa lagu soo rogay magaaladii Bandow waxaana la joojiyay shaqooyinkii ka socday magaalada. bulshadii oo dhan waxay u howlgashay sidii ay u heli lahaayeen gabadhaas yar. maalinkii ay taariikhdu ahayd 10 November Joshua si caadiga ah waxa uu aaday iskoolkiisii. waxaana iskoolka u sii kaxeeyay aabihiis. hooyadiisna waxa ay joogtay guriga. sidoo kale aabihiisna waxa uu sii aaday shaqada isagoo rabay inuu sii geeyo iskoolka wiilkiisa. hooyadiina waxa ay bilowday inay nadiifiso qolka wiilkeeda. qolkii marka ay soo gashay waxa ay dareentay ur iyo qarmuun. waxa ayna istirwaa sariirta oo ahayd nooca biyaha. waxayna u maleynaysay in urtani ka soo baxayso sariirta, laakiin waxay ogaatay in urtani aysan ahayn sariirta. sariirtiina waxa ay ka dejisay furaashkii waxaana u muuqday sharabaad. sharabaadkana waxay u maleynaysay inuu yahay kii George. sharabaadkii manigisaantii ayay soo jiiday, laakiin waxa ay dareentay inuusan waxaan sharabaad kaliya uusan ahayn. qolka oo aad u madooba hooyadii waxa ay u baahatay nal. waxayna soo qaadatay toosh. kadib sharabaadkii ayay soo jiiday waxayna dareentay oo aragtay wax aysan raalli ka ahayn oo aysan diyaar u ahayn inay markaas aragto. waxaa sariirta ku hoos jira meydka gabadhii yareed ee la raadinayay ayaamahanba. hooyadii waa aamini weyday waxa ay aragtay. isla markiiba waxa ay bilowday inay wacdo ninkeeda
laakiin nasiib darro weli ma uusan gaarin shaqadii. taleefankeena lagama qaban. hooyadii aad ayay u cabsatay. booliskuna waxa uu ku jiraa heegan tan iyo markii la waayay gabadha yar. hooyadii waxa ay ka baxday albaabka. waxa ay sarkaal bannaanka taagnaa u sheegtay in uu ugu yimaado gurigeeda, sidoo kale uu horay u soo wato dambibaalayaasha kuwa ka mid ah. markii ay yimaadeen askartii, waxay si toos ah u galeen qolkii, waxayna soo saareen meydkii. waxaa xabsiga loo taxaabay hooyadii. booliiskiina waxa ay bilaabeen inay soo xidhaan dhammaan xubnihii qoyska. George-na waxaa loogu tegay iskoolkii isagoo ku jira xiisadihiisa, waxaana looga yeedhay xafiiska, halkaasoo laga soo kaxeeyey oo la keenay saldhigga booliiska. sidoo kale waxaa yimi aabbihii Steve. markii la helay meydka, meel kasta waxaa isqabsaday warkii oo ahaa in la helay meydka gabadh yareed. sidoo kale gurigii ay degganaayeen qoyskani waxaa lagu wareejiyey askar, loomana ogolayn in ay cidi gasho. George-na waa uu qirtay dembigii, sidoo kale waxa uu sheegay sidii dilku u dhacay, waxaana la helay qalabkii loo adeegsaday dilka, mididii iyo ushiiba. intaas kadib George waxaa loo wareejiyey xarunta lagu hayo ciyaalka ee qaybta xabsiga. George maxkamadayntiisu waxa ay bilaabantay bishii Agoosto sanadkii 1999 waxaana lagu xukumay xukun dil ah. hal sano iyo badh kadib waxaa geeriyooday George aabihiis, waxaana uu ku geeriyooday shil gaadhi. bila kadib George xukunkiisii dilka waxaa loogu bedelay xabsi daa'im bilaa raaxfaan ah. hooyadiisna waxa ay isku dayday inay ka soo dayso xabsiga dadaal aad u dheer iyadoo samaynaysa, laakiin waa ay fashilmeen dhammaan dadaaladaas oo dhan. dilkaas gabadheer loo geystay waxa uu sababay inay kala tagaan waalidiintii Maddie. sheekadani waa mid ka mid ah kiisaska dil ee ugu naxdinta badan ee soo mara Mareykanka. baaritaano la sameeyey ayaa waxa ay sheegayaan in George maskaxaan uusan fayoobeyn, laakiin waxaasoo dhan waxaa sababay waa cabsi uu ka qabo aabihiis. sidoo kale isagu kama uusan fikirin dilkan uu geysto dhibaatada oo ka imaan karta. George markii aabihiis dhintay, hooyadiis waxaa soo food saaray culays aad u xoogan oo dhanka maaliyadda ah si ay ugu doodo kiiska wiilkeeda, iyadoo ku baxaysa doodu lacag aad u badan. hadda George waa 32 jir, wuxuuna weli ku xidhan yahay xabsiga. sanadka 2022 ayaa maxkamad la soo taagi doonaa George, taasoo noqon doonta in la sii daayo ama inuu xabsiga ku sii jiro. haddaba daawade, bal qaybtoose community-ga noogu sheeg, ninkani ma u qalmaa in laga sii daayo xabsiga? I was embroiled in a flurry of emotions and feelings. Guilt, despair, pain, hopelessness, fear, and shame. waana kaaga mahadcelinayaa sida quruxda badan ee aad dhammaadkii la soo gaadhay. fadlan la wadaag muuqaalka asxaabtaada, like na saar muuqaalka. intaasu ku egyahay muuqaalkeena maanta.